soo dhawaada jaalayaal soo dhawaada aad baan idiin salaamaya saaxiibayaal. waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo arrinta ra-iisul wasaare Khayre. ayaan doonayaa inaan wax ka iraahdo jaalayaal, marka soo dhawaada si sharkareeya oo saaxiibada la wadaaga. waxaan rabaa inaan garanaysaa aan wax ka iraahdo garanaysaa wixii maanta ka dhacay baarlamaanka. ayaan rabaa inaan wax ka dhaho jaalayaal, marka waa hadli doona wax yar raalli ahaada, bal inta xoogaa dad noo soo galahayaan ma garanaysaa ra-iisul wasaaraha qaabka loo riday iyo sidii loo riday iyo sharci ma tahay iyo waxaasaanu eegaynaa jaalayaal. iyo ma garanaysaas wax anugu laftigii waan ka ogahay ma garanaysaa riditaanka ra-iisul wasaaraha iyo waxa hadda kusoo beegay waatay muddo wada shaqeynahayeen ma garanaysaa ninka la Farmaajo. marka jaalayaal arrintaasaan uga hadlaynaa. waxaan jeclaan lahaa marka inaad saaxiibadii la wadaagtaan waxoogaa yar ayaan jeclaan lahaa wixii dhacay maanta inaan wax ka raaco jaalayaal. waxaan rabaa inaan markaa idinla wadaago ra-iisul wasaare xasan cali khayre ee baarlamaanku maanta sidaad ogtihiin buu asagii fariistay oo ma garanaysaa isku yimid iyadoo ajendooyin kale laga hadlahay oo ay ka mid tahay ajendooyinka arrimaha doorashooyinka arrimo noocaasa in laga hadla ay ahayd oo ma garanaysaa howlo fara badan oo baarlamaanka ma garanaysaa u yaalla waa ka wareysan jaalayaal. iyadoo sidaa ay ahayd oo la isku ogay arrinta ayaa maanta gudoomiyaha baarlamaanka oo boodahaya baarlamaanka markii la soo galay markaas wuxuu yiri waxaanu wadnaa mooshin ra-iisul wasaare xasan cali khayre. markaas lagu waabaristay dabcan waxaan xusuus mudan xalay oo dhan ayaa waxa socday qorshooyin ma garanaysaa Farmaajo uu jeexayay oo ninka kan Fahad Yaasin la yiraahdaa laftigiisu uu dhinac ka waday oo ma garanaysaa xildhibaano la isku geeyo islaanta Khadiija iyo waxaas ay kamid yihiin ma garanaysaa xalay howshan way socotay laakiin si hoose ayay u socotay oo laba soo bandhigeen oo ma garanaysaa si hoose shuux ayay ku socotay. marka xalay ayay howsha si fiican u soo baxday ra-iisul wasaaruhu ma soo bixi kareen waa saakan laga gaarsiiyay wadawgeeda. sidee u bilowday arrintan iyadoo ay sidaa tahay jaalayaal ayaa waxa dhacday in ra-iisul wasaare xasan cali khayre marka hore Farmaajo celi laakiin bal wixii baarlamaanka ka dhacay marka hore ku hormarna jaalayaal. baarlamaanka maanta waxa dhacday gudoomiyaha baarlamaanka mursal ayaa yimid ajendooyin kale oo ma garanaysaa ajendooyin ay ka mid tahay arrimaha doorashooyinka maadaama nimankan 3 bilood baa u laaban waa ka horeysano waqtigoodii baa gabagaba ah ma garanaysaa. marka waxyaabahaas baa laga hadlayay lama sii sheegin baarlamaanku yimid waxaanu wadnaa buu yiri mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaare xasan cali khayre. mooshin waa laga keeni karaa ra-iisul wasaaraha sharci ahaan madaxweynaha laga keeni karaa ra-iisul wasaaraha laga keeni karaa ma garanaysaa gudoomiyaha baarlamaanka laftigiisa laga keeni karaa haya taas waa arrin sharci ah oo ma garanaysaa idinku waa garanaysaa. laakiin dhibaatada waxay ka taagan tahay hadalka gudoomiyuhu uu yiri ayaa wuxuu noqday hadal si weyn ma garanaysaa looga xumaa oo ahaa waxaan wadnaa mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo weliba mooshinka maxaa la socda cod baanu gelinaynaa buu leeyahay mooshinaan ka wadnaa codna waanu gelinaynaa. arrintaas isku qaboweysay xildhibaanada baarlamaanka taasaa keentay in xildhibaanada baarlamaanka ay istaagaan fiiriya buuqa aad arkaysay baarlamaanka ka dhashay arrintaa ayay ka bilaabatay jale. waxaa dhacda markaa iyadoo ay sidaa tahay baarlamaanka markii la furaba sida caadiga ah waa taqaaneen baarlamaanka quraana lagu afuray oo markii la furay ayaa gudoomiyuhu waxa uu yiri ra-iisul wasaaraha ayaanu ridaynaa fiiriya si toos ah ayuu yiri sharci ahaan waxa ay tahay waa inuu soo bandhiga uu yiraahdo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha magaranaysaa wasiirka koowaad ee dowladda mooshin ayaa laga keenay waa laga keeni karaa dabcan sidaa ma uusan dhihin ee waa ridaynaa ayuu yiri taasna waxay waxyaaba dhibaatada keenay. marka lama sheegin fiiri ra-iisul wasaaraha marka la ridayo sharcigu waxa uu yahay in magaranaysaa la sheego oo la xibno intaas la eg ayaa ra-iisul wasaaraha ka keenay magaranaysaa mooshin la sheego xibnii saxiixoodii la keeno ma garanaysaa sharciga sidaas weeye ma dhicin. waxaa kaloo taa u helisa in 3 maalmood ugu yaraan laga doodo oo ma garanaysaa ra-iisul wasaarihii loo yeero oo waxaasoo dhan maysan dhicin. asagaa sheegay ma garanaysaa markiina wuu ku dhawaaqay oo waxa uu yiri codna waa gelinaynaa. marka buuqa halkaasuu ka bilowday sidaasaa buuqa ku dhaca jaalayaal. iyadoo sidaas ay tahay ayaa baarlamaanka waad ogeydeen video way ka duubahayeen qolayaan wax laga shaqeeyay ay laftooda beesha caalamka iyo dadka hadhow daawan doona iyo bulshada iyo dadka caamada in laga gaday mug. marka qayb ka mid ah oo islaantan Khadiija iyo qaybta dhinacaas fadhisay oo xildhibaano qaari ayaa video laga qabtay inaad daawanaysiin in kalmoog video laga qabtay ayaa naloo soo bandhigay. sidaas ayay ku dhacday jaalayaal. markii uu sheegay codaan la qaaday xildhibaanada isoo tiriya ayuu yiri waa in kaliftiin waa daawateen videoga dib looma arkin gudoomiyaha taa waxa weelisay markii uu tagay xafiiskiisa oo harfil Hargeysa ah oo gudoomiyaha baarlamaanka u fariisto
ayuu waxa uu yiri shir jaraa'id u qabtay sida anigu hadda xafiiskan aan fadhiyo aan barnaamij ku soo tabiyay waana sidaan kale u hadlay waxa uu yiri xildhibaanada maanta go'aankaasi gaareen in 170 ayaa magaranaysa cod ku diiday waxbuu sheegay waad ogeedeen waxa kale oo xusid mudan jaalayaal markii dambe oo radioga TV-ga qaranka oo farmaajo iminka u adeegahay laga sii deynahay warbixinta waxa la sameeyay gudoomiyaha baarlamaanka oo hadlahaya iyo waxa la isku dhajiyay fiiriya xildhibaanadii kale oo markay buuqahayeen qayb kamid ah markay gacmaha taagayeen marka baarlamaanka maba ka dhicinba sharciga lama raacin marka horena sharci kuma furmin oo qaabka ay idin sheegay looma soo marin oo magaranaysaay in mooshin laga keenay in la soo bandhigay xibnaha magaranaysaa mooshin ka keenay tiradooda iyo inta ay leeyihiin iyo waxaasoo dhan looma marin baarlamaanku buuqu ku bilowda buuquna ku dhammaaday buuqaas ayaa gudoomiyaha baarlamaanka mursal iyo weliba muddayba ay ku baxeen waana sida u fahantaa horta sideeda wax rasmiga ah taasa mugta dhibaatada jirta waxay tahay warbaahinta dowladda waxay la jirtaa farmaajo oo warkii ra'iisul wasaaraha si fiican usoo tagamaya wixii meesha ka dhacay noo sheegi mahayeen sidaas ayay wax u dhaceen jaalayaal mursal ayaa xafiiskiisa fariistay wuu iska hadlay waraa laga soo duubay warkii laga soo duubana waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha waa ridnay sidaas iyo qaabkaas ayaan u ridnay ayaa magaranaysaay jaalayaal laga soo duubay marka haddii aan eegno jaalayaal qaabkaas horta arrinta ay u dhacday sharci ma tahay marka arrintaasi arrin sharci ah ma tahay ma ahan sidaas daraaddeed waxaan dhihi karaa in ra'iisul wasaare xasan cali khayre mooshin kale waa laga keeni karaa sida madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo xubnaha kale ee la doortay dhammaanba magaranaysaa looga keeni karaayo laakiin hadda wax magaranaysaa sharci ah oo dowladnimadiisii iyo nidaamkiisii lagu riday haba yaraatee lama arko inay sida u fahanaa jaale ama taageersanaa khayre ama taageersanaantaas waa arrin kale laakiin sharcigaan ka hadlayna jaale sharci kuma dhicin arrinta xal sidee lagu heli karaayo arrintan marka fooday u muuqanaysaa haddii ra'iisul wasaaruhu isagu uu magaranaysaa isxil qaamo oo uu yiraahdo rabsho iyo inta laga dheeraado uu isagu magaranaysaa xilliga iska gudbiyo waa gaar magaranaysaa inkastoo aan la qabin aniga oo arrintaas sharci darro ay magaranaysaa ay jid u sii furayso laakiin qaabka hadda dowladdu ay samayso oo farmaajo uu hogaaminayo iyo Fahad Yaasin iyo ragaasi nidaam xumo way jaalayaal dastuurkii iyo nidaamkii iyo wixii oo dhan magaranaysaa ka hormaan waxa xusin mudan jaalayaal marka shirki ka dhacay Dhuusamareeb oo magaranaysaa wax weeye lagu wada hadlay in Agoosto la isugu yimaado iyo ujeedooyinka shirka ka soo baxay ayaa lagu marahabaaminaya ra'iisul wasaaraha la riday iyo baarlamaanka shiraha ay adarkiis waadna ogeydeen markii horeba madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka in asku aragti ay ka ahaayeen in magaranaysaa wax weeye waqtiga la dheereeyo ra'iisul wasaaruhu uu kooriyay uu yiri waqtigeena dhamaysanayna doorashadii qof iyo cod ahna waqtigeedii iyo hawsheedii lama gali karaayo doorashadii dadban oo waliba qaabka xasan sheekh oo ahaa konton qofba inay xildhibaan soo doortaan ayaan maraynaa ayuu yiri magaran arrintii laga raacay wada aragta hadda dhibaatada ka taagan jaalayaal marka arrintaas ra'iisul wasaaraha uga timid waxa xusid mudan kale oo muhiim inaad ogaataan ra'iisul wasaare xasan cali khayre inuu ku hakado magaalada Dhuusamareeb oo arrintaasi magaranaysaa uu ku holaado farmaajo u jeexay oo yiri maadaama anigu aan laabanahay aduu iga dambeeyay waxaad ka shaqaysaa in magaranaysaa shirka iyo gudiyada iyo isku imaashadeena dambe qaabku noqon doono arrinta u howlgal arrintaas ugu mashquulsana laakiin hadda waa laga hoos bixiyay oo ninka odaga ahaa oo magaranaysaa waxa weeye sidaad aragteen ayaa wax u dhacay waxaana si hoos looga shaqeynayay habeen hore ayay magaranaysaa si hoos ugu bilaabatay xalay way soo shaabaxday maadaama ra'iisul wasaare uu subax ka soo gaari karaynin ajandii marka sidaas lagu keenay wax lagu ballamay oo lagu heshiiyay oo la sii ogaa ma jiraan ilaa hadda xataa saacadaas aanu hadlayno oo habeenimada maanta wixii dhacay ma hayno xibnihi magaranaysaa ay qoray magaranaysaa jaale walaga hadda kadib inay isku habeeyaan isku toosiyaan marka sharci ma ahan ra'iisul wasaaraha lama ridin xilkiisina sidii u hayaan asaga haddii doorto yiraahdo iska tagaya waa gaar inkastoo aan marnaba la qabin jaale arrintan farmaajo ka dambeeya ujeedkiisuna wax kale maahan waqti kororsi u socda oo waxa uu leeyahay wuxuu rabaa ra'iisul wasaare la bedelay ra'iisul wasaare kale yimid xukuumad cusub jirta waqtiga in la dheereeyo doorashooyinkii waxyaabahaas oo dhan uu rabaa inuu isku qariyo doorasho qaris ayay ka tahay jaalayaal laakiin arrintu si sharci ma ahan dabcan waxaan xusid mudan jaalayaal aad bay uga xumaatay iyaga oo degdegahaya ayay magaranaysaa ka xumaatay aad ayayna arrintan u dhicisooday magaranaysaa wax soconayana ma ahan waxaan rajaynayaa sidoo kale beesha caalamka iyo dadkii awalba Soomaaliya marba ku lahaa inay farageliyaan farmaajana waqti inuu dheeraysto sugayay waxay u badan tahay in waqti uu kusoo gaaban doono maxaa wacay inuu soo hore u socono way muuqataa ujeedooyinka dhan oo ra'iisul wasaare u ridahayna jaalayaal
waxa weeye in magaranaysa ay waqti dheeraysto oo magaranaysa isku bixiyo asagu isku bixis waana la filaaya arrinta Trump jid kale u banaana ma jirin sababaha maanta dhawad xataa go'aan loo qaado waayay markii la joogay magaalada Dhuusamareeb oo shirka wax looga soo bixi waayay Farmaajo diiday mugta oo yiri may dib noogu dhiga gudiga aan magacaawno asaga yiri Farmaajo waa ka waraysan sidii u dhacday markaa qorshihii uu lahaana way hirgashay waxa kale oo xusid mudan markii baarlamaanka waxaas ka dhaceen 10 daqiiqo kama soo wareegin markii uu leeyahay markii waa ogolaado wax la isla ogaa baarlamaanku sidaas soo yiraahdo dabadeedna ma garanaysaa ay madaxweynuhu ogolaasho ha keeno ayaa lahaa jale ra'iisul wasaare xasan cali khayre markaa ma dhicin sidiisii ayuu ma garanaysaa jale xafiiskiisa ku fadhiyaa sharcigan u eegayna sharciga ayaa sidaa leh ma garanaysaa marka madaxweynahana isaga wax laga weydiin doonaa waxayna u eg tahay madaxweyne Farmaajo dastuurka inuu ku tuntay sharciga inuu ku tuntay wax qabtaayna inaysan jirin ma garanaysaa dabcan Farmaajo waa garan karaysaa maxamed cabdi yuusuf ninkoo la taliyo u yahay oo hoosta ugu jiro oo ma garanaysaa waa garan kartaa iyo dad noocaas la joogo fiir la taliyaal fiican ma lahan wax la dajiye ma lahan dad wax u sheega ma lahan fiir doorashadan waxba ka socon mahayaan xasan sheekh oo waxaad aragta sameeyay wax aragta qabtay ayaa markii dambe ogolaaday in ma garanaysaa doorasho uu galo Farmaajo qurbaha Nairobi New York ma garanaysaa jaalaya kafee ku cabahaya maalin guud madaxweyne noqday waxa laga shaqeeyay oo loo dhiibay oo loo habeeyay ayuu rabaa hadda inuu ma garanaysaa ku galgasho dawladnimada fiiri anaga dawladnimada inta laga keenay dawladnimada waxa laga keenay salka hoose waa ogeedeen daraada la dagaalamay la kala baxay waa ogeed meesha Soomaaliya isla gaarto cid walba ka warqabta adeerkiis waa ogeed ilaa meesha la eriyanahay asagoo Mareykanka yimid oo la rabay inuu dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka iyo waxyaabahaas oo dhan uu horseedo oo dadka waji kala tuso ayuu u saciinayaa dagaal rabsho fiiri doorasho la diiday iyo waqtiga lagu darsanayaa iyo qof walba oo garashay imaan leh oo garaad leh imaan dadka caadiga ka hadlamayno oo siyaasadda ku jiray wuu ogyahay dhibaatada ka imaanaysa arrinta si fiican ugu warhaya jaaleen marka waa arrin dhiladeeda wadata waa arrin dhiigeeda wadata waxay u badan tahay inaad aragtaan Farmaajo oo lug lahayo oo magaalada Muqdisho lagu jiidayo marka hadda aragtaas ha malaysan weyn maxaa waay wuxuu u saciinayaa waa dagaal fiiri dadka deegaanka iska lahaa oo xasan sheekh oo deegaanka u dhashay shariif deegaanka u dhashay yaa doorashada qabtay hagaajiyay wax walba dhameeyay fiiri asaga oo ma garanaysaa kor socod ah ayuu rabaa dadka inuu lugooyo iska dawo wareejiyo dadka la talinayaa liita dad wanaagsan la talinaya Farmaajo oo ay ku dhow yihiin garanaysa dad qabiil ay u badan fiiri oo qaab qabyaaladeed oo warxumo tashiil ah iyo dadka kacaanka madaxa maray ee maxamed cabdi yuusuf oo kale uu ka mid yahay yaa geesaha uga jira garanaysa oo aan u sheegin marnaba waxaan socon mahaya fiiri dadka loo deegaanka jooga la shaqeynaya wuxuu rabaa inuu wax soconayn oo socon karin oo socodoonin waliba inuu socodsiiyo marka madaxweynuhu kulley wax u muuqataa ninka odaga ee Farmaajo dabcan barnaamijyo badan ka sameeyay inuu liitaa oo garashadiisa iyo garaadkiisa iyo aqoontiisa wax dhamay liitaan oga garanaysa marka liidnimadiisa u keenaysa waxaan soo karin fiiri waqtigiisa ayuu idlaystay wax uu qabta lama arko intaas wuxuu ku mashquulsanaa maanta uu yimid fiiri dhalinyaro wuxuu ku siinahay Facebook lacag hal soo amaano hal la isheego hal la yiraahdo garanaysa wax uu qabtay oo cad madow lama arko jale fiiri marka laga hadlayo ammaanka muhiim ah wax ka qabashada fiiri tiyaatar rinji la mariyay iyo meel garoon xumo lagu ciyaaro ciyaar ku boodana ma garanaysaa la habeeyay iyo islaana baraanburtay waxaas dawlad ma ahan wax uu ku mashquulsanaa waa maxaba dhalinyaro lacag si inta lacag ku bixi madaxweynaha Jubbaland Axmed Madow hal caayo koox fanaaniina heesa u sameeyaan wax lagu caayo amiin caamir oo liita oo aanu dabcan anu waa aqaan oo 2006 ayaan ba arkaba nigaas inuu liid yahay haddana dad badan wada arkaba ma garanaysaa gabar walaashiisa gobolka Banaadir wax looga daray oo awal Farmaajo ciyaar kubad ciyaar xusla ciyaaraan ahayn iyo say afkiisa kala ahaa adogeeday marka Farmaajo waa nin noocaas wuxuu lacag ku bixiyay oo nidaamka iyo waqtigii iyo dawladnimadii uu ku ciyaaray in asaga la amaano in asaga wax la qabato la yiraahdo sidaas ayuu ah ra'iisul wasaaraha imika la ridana siyaasaddiisu kula shaqeynaa siyaasaddiisa ay ahayd in la amaano oo waxaas fiiri ilaa hadda waxay ku mashquulsan yihiin hadda maanta waxa dhacay sharci miya ma qof walba oo insa sharci ahayn sharci uma soo marin waxaas wuxuu yeelayaa dada ku naban la taliyaal liitu leeyahay fiiri hadduu aniga la taliya iga dhigto waxaan soconayn waa ilaa waxa socomayaan ka joogso laakiin qof cunno un raadinaya ee aan talo wanaagsan siinay maxamed cabdi yuusuf oo kale iyo dad la garasho ah oo ma garanaysaa kacaan iyo balaayo iyo reernimo iyo qabyaalad iyo ugu jirto hoosta ugu jirto dabcan
magaranaysaa waxaan rajaynaynaa sacaas uu magaranaysaa iminka uu koolkoolinahayo waa fila Soomaaliya caanaha uu ka maalo sun inuu ku noqdaan rajaynayna magaranaysaa meesha la tagana waanu arki doonaa ninka odaga waa nin bala raadsada fiiri ninka bala raadsada asagii magaranaysaa ay kulli ku dambeyn doontaa marka farmaajo mashaakilka asaga wada dabcan waxayna u badan tahay in balaayo iyo musiibo arrinta ay ka dhamaado ku dhamaad doonto cid walba oo maanta ka hadlaysa siyaasadda waxay leedahay farmaajo nin doorasho ogolmaan waa nin dictator fiiri qofka caadiga marka la yiraahdo farmaajo waa dictator inuu yiraahdo laga yaabaa oo ninka miskiinka ah shalay la keenay intaas waxba maleeyahay uu aamusnaan badan yahay uu aamusa markii la rabo inuu hadlo oo wax ka dhaho arrinta uu aamusa doqonnimadiisa xataa ka mid fiir hadda anigu live anigu jira idin la hadlaaya waxaan qaban sheegaya sida taan gaas oo abaarahaya wuxuu yahan tilmaamaya saa uu soo fariismo hadda yarahay TV-ga laga wareysanayo warkiisa waa la jarjara madaxweynaha hadlay inta ka jara markuu ardada xataa ka hadlay maanta 60 kun oo arday wax uu ka hadlay 60 arday ayuu yiri magaranaysa marka waa lead dadnimo mala ku warda dadnimo malaha wax aqoon ma lahan waad ogeedeen jaamacadda xataa kama u sabixin oo waraaqay wax loo sameeyo inta u dhaxaysana waa ogeedeen markii uu jaamacada baranaya xilli uu ka soo baxay waa lead dadnimo ma lahan hogaamin ma lahan codkar ma ahan ma hadli karaayo adii sheeg anuu hadda inta anoo fadhiyo live ku jira Facebook aan idin la hadlahay waxba meel ka fiirin maayo warkay la toostoosin maayo magaranaysaa bixintaas eebaba ma lehba marka hogaamis uu ku noqon karaa qofka hogaami ku noqdo inuu dadka la hadlo wax uu qabo bandhigo u sheego magaranaysaa ra'yiga iyo waxa ay la tahay magaranaysaa uu ka dhacdayo waa nin warkiisa la habaynayo la jarjarayo laba eray isku toosin karaayo farmaajo hogaamis uu ku noqon karaa qof noocaas ma noqon karo dad ninkan marka waa musiibo bulshada loo soo diray jaalayaal ra'iisul wasaaraha isku bixis iyo magaranaysaa inuu isku bixiyo ayuu doonayaa laakiin waa arrin aan u socdoonin oo magaranaysaa asaga oo dhibaato ku ah jaalayaal balaayo ayayna ku noqon doontaa jabcan maanta dhow samare markuu joogo waxa laga filayay inuu garaadsado oo garasho iyo magaranaysaa dareen badan la yimaado hayeeshe jaalayaal ma dhicin oo wixii dhacay magaranaysaa ka horeysa waxaanu leenahay mar kale ra'iisul wasaare xasan cali khayre qaabkii loo riday jaalayaal sharci loo marin ra'iisul wasaaruhu ilaa iminkana dowladnimadiisii asaga ayaa ra'iisul wasaaraha sida sharciga ah baarlamaanka marka waa baarlamaan leh magaranaysaa awal sida uu ku yimid waa ogeeyay ninka kan bursal oo markii jawaar la saaray ka wareysaa marka baarlamaanku qaabka u maraa qaldanaa totally oo magaranaysaa motion waa laga keeni karaa ra'iisul wasaaraha waa la ridi karaa laakiin lama ridin iminka sababtoo ah sharciga loo mara ayaa qaldanaa baarlamaanka waa la rabaa in xibno inta la eeg ka keenaan in la soo qoro ugu yaraan 3 maalmood tira ahaan laga doodo oo baarlamaanka waxa ay ka doodayaan wax ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa lagu eedeeyo la sheego dabadeed markaas cod la geliyo laakiin in maalin gudaheed la yiraahdo ra'iisul wasaaraha ayaa la ridayaa isla markaana cod la geliyahay magaranaysaa jaalayaal sharciga ma aha haddana codkii ma dhacay ma u dhicin baarlamaanku dood ayuu ku bilowday doodii ayuuna jaalayaal ku dhamaaday maanta sida daraaddeed ra'iisul wasaare xasan cali khayre waa ra'iisul wasaarihiisii xukunkiisa saa ku fadhiya cidna kama aysan qaadin baarlamaan sharci maray oo xukunka ka wareejiyay haba yaraatee laba arko sidaa horta waa u fahantaa waxaan rajaynaynaa farmaajo ninka la yiraahdo inuu ku qoos qaato wixii maanta dhacay uusan ku laaban doonin dabcan waxaana jira siyaasiyiin iyo dad fara badan oo ka hadlay ururada bulshada magaranaysaa madasha laftigeedu way ka hadashay in waxba aysan ka jirin isla markaana ra'iisul wasaare aan la ridin ayaa la isku raacay meel walba waxaan rajaynayaa ra'iisul wasaaruhu marka inuu soo laabto xafiiskiisana u yimaado arrimahan socdana la dhameeyo haddii sida ku wada farmaajo ay ku socotaan hadde waxaan rajaynaynaa in magaranaysaa uu ku bixi doono farmaajo oo aad arki doontaan farmaajo lug la jiidahayo garanaysaa marka dadka qaari ee qasay ku dhow ee beeleed hadda uu yees oranin farmaajo deegaankii muqdisho iyo hawiya lugta jiiday oo magaranaysaa si xun oo saxareer ah oo sida khilaafi loo dilay hadda intaad oran lahaydeen oo magaranaysaa ila Soomaaliya nahay garashadeeda yeesha oo ninka qabta liitaha ah dib socodka ah aan hadli karayn fiiri laba eray aan oran karayn magaranaysaa liitaha ah qabtaan barajinina oo waliba fiiri dadka la talinayay maxamed cabdi yuusuf markuu la talinayo garanaysa oo qabyaalad ku jirto oo magaranaysa kacanimo ku jirto oo liidnimo ku jirto oo magaranaysa qabiil nacayb ku jiro fiiriya meesha uu joogo in xamar tahay oo dad kale marti u yahay uu la joogo inuu garaadsaa mar walba dhulku waa la fileeyay oo sida u fahmaa madaxweyne Soomaaliyeed oo dastuur iyo sharci ku yimid way hadduu dastuurka iyo sharciga iyo wuxuu ku yimaado dhowr way dabada xaraati laga gelinahay deegaan kulli asagu maya dadku yahay maya
taasaa meesha imaanaysa marka sababaha loo leeyahay farmaajo dastuurka ha ilaaliyan taa weeye waa inaad garataan jaalayaal marka ra-iisul wasaare xasan cali khayre xilkiisa isaga haya waxaan rajaynaynaa in ra-iisul wasaaruhu uu guddi ku jiro laga soo baxo isla markaana uu maganaysa awooddiisa muujiyo deegaankiisiya madax lagu yahay oo lala joogayay uu bulshada u horseedo wanaag ayaanu rajaynaynaa jaalayaal si kooban waxaan uga hadlayay ra-iisul wasaare xasan cali khayre maanta wixii ka dhacay magaranaysaayey waxa weeye baarlamaanka oo aanu leenahay wax ka jira haba yaraatee lama arko ra-iisul wasaarehuna hawshiisa sii wata ayaan leeyahay waxaan rajaynayaa saaxiibayaal in magaranaysaa saaxiibadina kale barnaamijka lagu taagtaan inta aan dib u kulmi doono Axmed Tooyo oo magaranaysaa usoo galay arrinta siyaasadeed magaranaysaa jaalayaal ka hadlo inta aan dib u kulmi doono asalaama jaalayaal